tahay waa kaalinta Sky waa meeshii ugu dhiiqada badnayd maswanaag maanta laamidaas quruxda badan ayaa la dhigay ma sha Allah halkan dadku dhibaato badan bay kala kulmi jireen xilliyada roobka xaafadda 7-aad iyo 9-aad ayaa garanaya waa kaalinta Sky waa halka laga soo talaabo toga marka la soo dhaafo isbitaalka Ramadha meeshii biyaha badan ay fariisan jireen ayaa laamidaas la dhigay wadadani waa wadada Harbukaale ilaa iyo Jigjiga magaalada gudaheeda ayaa laga bilaabo dhinaca laamida wana taaweedeen muuqata ma sha Allah waxaan rajeynayaa in laga raysan doono dhibaatooyin aad u baana oo lagala kulmi jiray xilli roobaadka dhiiqa badan iyo rafaad boydu waa kuwii tagi jiray malaha dee Jabuuti ka imanayay kuwa wada aragtaan boydaas korbay ka yimaadeen jidkanay soo qaadeen Harbukaale waa boydii shidaalka ka keenaya Jabuuti ما شاء الله مغالطة جيجيغا laamiyo badan baa u soo kordhay diyaar garowgan iyo waliba waqtigan isbedel kadib laamiyo aad badan ayaa u soo kordhay haddana waxay soo tinay laamiyo badan ka socdaan magaalada Jigjiga tanina waa mid ka mid ah laamiyada muhiimka ah xaafadan ay dhibto badan ku qabeen bulshadana waxaa looga baahan yahay inay daryeeshaan oo ilaaliyaan arigan kusugay arigaas dhirta sugi doona ma mooyaan arigaas dhirta iyo howlahaas wataaniyo magaaladii bay ka baxaysaa dadka ka leexanaysa bulshada waa laamidii Harbukaale dhinaca qoor dheer u baxaysay nabasi u yaqaano ma sha Allah dadka maanta cudurkiisa Ilaahay ku sumay Allah wanaag badan bay heleen kuwa rafaad badan ayay la kulmi jireen xilliyo badan meesha soo dhaweynayna laamiyada badan ay dawladdu ka hirgelisay magaalada Jigjiga magaalooyinka kalena inay u dhaadhiciso gaarsiiso ayaa rajeynaynaa caasimadaha kale Goday Dhagaxbuur Qabdahar Fiiq Bardheer Hargeysa City Hargeysa baa ugu daran Liibaaniye Sanayle Filtu Daawale magaalooyinka dhantay xarumaha magaalooyinka in laamiyada iyo kaabayaasha markayna la gaarsiiyo ayaan iyagana rajeynaynaa inta ugu badan